بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومك لبض القلة بارلمانك شرفت له مدن يمرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وعرب أنا كل هذا مرة وقتي النهاية وعرب وزارة المالية إذا وما صنتها وزيرك وزارة المالية أنك مدبرنا اجتبت هجنين haddana inaan baarlamaanka isugu nimaado sharaf gaar ay tahay waxaan leeyahay wasiir waa maasan tahay adiga iyo tiimkaaga inta kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo saddex su'aalood oo kala ah waxaan ognahay buugga miisaaniyadda marka la fiiriyo duruufaha uu dalku ku jiro waxaa jiro hay-ado iyo waxyaabo kala duwan oo aad u fara badan oo ka baxsan wasaaradaha waxayna leeyihiin budget gooniya macnaha waxaa lagu soo celceliyaa mar walba wasaaradda maaliyaddu annaga waxaa naga dhexay jirta shaqo gaara wax waliba miisaaniyadda waxaa laga fiiri jiray hay-ad hebela muhiima iyo hay-ad hebela muhiima waxaan isleeyahay marka aniga waxay ila tahay wax ka muhiimsan amniga iyo difaaca dalka ma aan isleeyahay oo wax waliba ay kusan yihiin waxaa marka inaan weydiiyo hay-adahaas oo iyo budgetkaas leh maadaama aan ognahay waddanka xaaladda hadda ku jiro in shaadka faraha badan ee kala nuuca ah maadaama annagu aan qayb ka ahayn kana soo shaqaynay hay-adaha amniga gaar ahaan wasaaradda amniga iyo wasaaradda difaaca iyo talisyadooda ciidamada ma jirto hay-ad ama wax hay-addaas ka baxsan oo qabto shaqada hay-addaas wasaaraddaas ay leedahay budget gooniyana leh buugga aan akhrinay iyo miisaaniyaddana waxaan ku arkaynay hay-ad lacag leh hay-addaas shaqada ay qabanaysana wasaaradduna miisaaniyada hay-adduna miisaaniyada leedahay hal shaqayna wada qabanayaan waxaan rabnaa marka waxaan meeshaas aniga iga muuqato si aniga ila noqotay inay tahay naas nuujin aysan ahayn shaqo qaran hay-ad qabanaysa waayo wasaaraddiyaa joogta taas marka waxaan tirada badan oo wasaaradaha ka hoos baxo iyo qaybaha wasaaradaha ka baxsan waxaan rabnaa in wasiirka tiimkiisa ay noo faahfaahiyaan intaa kadib tusaale markaan uu soo qaato waxaa ka mid ah tusaale guddiyada faraha badan ay ku baxdo miisaaniyadda markaan tusaale soo qaato guddiga xuquuqul aadanaha la yidhi sanadkii 2020 waxaa ku baxday miisaaniyad gaaraysa 2,263,157,000 sanadkii 2021 waxba kuma bixin sanadkan 2022na waxaa loo qoondeeyey 100,000 waxay ku tusaysaa guddigaas uusan muhiim ahayn haddiiba uu sanad uu budget leeyahay sanadna uusan budget lahayn mar uu 2 milyan lahaa haddana uu 100,000 oo dollar uu leeyahay oo keliya waxaan isleeyahay marka in laga muhiimsan yahay ayay muujinaya guddiyadaas iyo hay-adaha meesha ka muuqdo intaa kadib hay-adaha amniga iyo difaaca dalka waa hay-adaha lafdhabar kuwa dowladnimada wax walibana ayay ku tiirsan yihiin hay-adahaas xildhibaan saaxiibkay haddaa ka dhawaajiyey su-aal uu ku weydiiyey hay-adahaas hay-ad ka mid a gaar ahaan hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka sanadkii hore iyo sanadkan farqiga u dhexeeya miisaaniyadda hoos ay u dhacday maxaa ka hoosgareeyeen hay-addaasaan muhiim ahayn mase colaad gaara oo hay-adda loo qabaa jirto tusaale markaan soo qaato 1,313,135 dollar ayaa laga reebay miisaaniyadda hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka maxay ku timiday waan u baahanna in la faahfaahiyo haddaana xildhibaana ku weydiiyey lagama jawaabin waxaan rabaa taas inaad ka jawaabto intaa kadib waxaan ku keenay hay-adaha aan muhiimka ahayn waxay meesha ka saarayaan in dalku xaaladdu hadda ku jiro iyo isbeddelka hadda dhacay waxaa la leeyahay dalku wuxuu ku jiraa duruufo abaareed iyo duruufo colaadeed oo soo jireena iyo duruufo abaareed oo hadda la galay
haddii marka buugga miisaaniyadda siduu u yaallo loo ansixiyo aniga waxay ila tahay waxaa adkaa doonto in cadowga argagixisada ee dhibaatada ku haya dalka iyo dadka in lala dagaalamo aad u adkaanaya waayo wixii lagu dagaalami lahaay oo dhan waxaad moodaa in loo isticmaalayo waxyaabo aan muhiim ahayn waxaan rajaynayaa marka mudane wasiir inaad ka jawaabi doonto su-aasha hay-adda nabad sugidda oo aadan ka jawaabin hadaayay laguna weydiiyey iyo ahmiyadda hay-adaha amniga iyo difaaca dalka iyo hay-adahan ku dhex jira miisaaniyadda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.